يلا ما شاء الله والله ما يقدر السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaa sharaf noo ah maantay annagoo ka kooban xubnaha labada heer ee dowladda federaalka ah oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed wasiiradii labada heer maamulkii gobolka Banaadir dhammaan warbaahinta iyo dhaqanka iyo dadka dowlad goboleedyada kale ka socda culamaa u diinka bahda warbaahinta dhammaantood intaba aanoo magacooda ku hadlaya waxaan sharaf noo inaan soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qoorqoor oo runtii muddo dheer aan sugaynay inuu halkan mar noogu yimaado shaqadii iyo howlihii uu ka soo waday Galmudug qayb ka mid ah maanta halkan ugu soo gaaray waxaan rabaa ujeedka aniga hadalkaan u qaato wuxuu ahaa soo dhaweyn waxaan halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha annagoo halkan u wada joognaa soo wada gudbinayna salaan soo dhaweyn mudane madaxweyne ku soo dhawow salaatu wasalaam ala rasuulillah gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare golaha aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka xildhibaanada baarlamaanka labada gole golaha wasiirada siyaasiyiinta boqorada iyo duubabka dhalinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada bahda saxaafadda dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marweyn madaxda sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhaweynteenna waa idiin mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran walaalnimada iyo sharafta badan nagu soo dhaweyseen muddada noo taagneedeen qoraxda aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa muddo dheer kadib mudanayaal maantaan kusoo laabtay muqdisho idinkoo og howlaha iyo shaqooyinka aan ku maqnayn muddada dheer oo ka jirtay ama aan ka wadnay Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya sharaf bay noo tahay inaan maanta idiin nimaadno annagoo nabada isu soo laabanno safarkan halkaan aan ku imidno waa safar shaqo oo ka mid ah shaqooyinkii iyo howlihii aan wadnay qayb ka mid ah waan iswaraysanaynaa talooyin badan oo loo baahan yahay ayaan ka tashan doonaa waqti baan isla qaadanaynaa shaqada aan u nimid baad qaybta ugu weyn ka tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa maanta war kaloon sii gudbiyo la sugumaye gadaalu jiraa warku haddii laa yidhaahdo aad iyo aad aad mahadsan tihiin soo dhaweyn sharaf leh soo imaad wanaagsan wada tashi habboon asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu